بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa la isoo weydiiyey arrimahan dad isoo weydiiyeen saad arki doontaan arkaysaan waxbaa ku qoran wax kamberi la dhaho privacy city miya wax noocaas oo kale ah nonsense ah invest from 400 taas weliba waa bata ugu sahlane arrintu halkan ay kasii daraysaa. Surged after Quantrader X, under the leadership of Anthony Albanese, launched a new project that allows Australians to earn $1,000 a day. ruuxan aad moodaysaan inuu hadlahayo waa gabadh ka mid aha kuwa Sky News aadka looga yaqaano. waxay u ahaan jirtay weli berigii horeete hadda wariyo weeye. waxay u ahaan jirtay la taliye ra'iisul wasaare hore oo la dhihi jiray Tony Abbott ee ku soo caanbaxday. waa right win weeye, laakiinse muhiimadu ma aho waa laba wax waa la isku dhaxdaraya. dadka la rabaa kuwii dadka taageersan liberaalka iyo wixii la halmaala iyo dadka laybarka iyo wixii la halmaala taageersan yaa la rabaa qolo kasta in la kasbado. khaa'inimo weyn ba meesha ku jirta oo ku socota. marka gabadhan oo taa lagu yaqaano oo Tony Abbott iyo qolada right-ka ahaa ama mataqaana liberaalka aad loogu yaqaano oo la taliyihii ahaan jirtay Tony Abbott muddo dheer, haddana Sky News warka ka soo daysa oo halkaa ka akhrida yaa arrinta bilaabaysa. waxayna leedahay ra'iisul wasaarihii Anthony Albanese ra'iisul wasaaraha Australia hadda jooga ayaa waxaan idiin ballan qaadaya leedahay yar dhageysano. ra'iisul wasaarihii waxa aad moodaysaan uu hadli doonaa. Thousands of Australians have already made between $30,000 and $50,000 in just their first month. And Anthony Albanese says this is only the beginning. I don't need an introduction. My name is known to every Australian. Today is a special day for those watching this message because you have a unique chance to completely change your life and become a millionaire before the end of the year. My project was... waxaan rabaa marka inaad dhaho horta go waxaad isweydiinaysaan dadka garanaya weliba dadka reer Australia waxay arkahayaan laba xaaladood iyo midda ma arkahayaan. waa midee ruuxan oo arki jireen sawirkiisii iyo videogiisii oo asagii ahaa ayay arkahayaan. inta badanna waa run, waxaad arkaysaan waa asagii wey. waxaa kalood maqlaysaan codkiisi iyada asagana maqlaysaan oo iyadana ay la yaqaanay oo la garanayay gabadha iyo ra'iisul wasaaraha labadoodaba. maxaa meesha marka ka socda? waxaa la isticmaalayaa wax la dhaho baryahan aad u socda oo wararka ka maqlaysaan, laakiin dadka intooda badan aynan hoos wala soconin waxa uu yahay oo anigu saan dhab oo la socdan ogahay meelaha qaarkood hata aan isticmaalay. waxaa weeye AI artificial intelligence. macnaheedu waxaa weeye haddii lasoo koobo artificial intelligence laba eray baa muhiim ah oo in la fahmo. midna waa artificial macnaheedu been oo kale waxaan jirin oo matalid ah oon dhabti ahayn, iyo intelligence maskax ama fikrad ama caqli waa caqli wey. marka waxaa weeye caqli la sameeyey oon dhab ahayn oo been ah. computerka ayaa loo tababaray asagoo la isticmaalo waxyaalo kale oo kala bedelan in marka wax loo sheego oo la dhaho waxaasi waxaa samee sidana u samee. marka meesha maxaa ka socda hadda marka uu sameynaya computerku sameeyey waxaa loo dhiibay horta sawirka ruuxii ayaa loo gelin ama videoga caadi video oo hadlahaya oo asagoo caadi u hadlahaya videogii baa lasoo qaadi waa loo sheegay waxaa la dhihi videogan aan rabnaa inaan isticmaalno kasoo qaad Anthony Albanese ra'iisul wasaaraha Australia. laakiinse codkii marka uu hadlahayay dhabta ahaa markuu hadlahayay meeshii waa laga saarayaa ama waa la gaabinaya waa la aamusinaya codka. waxaa marka la sameyn qoraal waxa la rabo in laga dhigo inuu ku hadlahayo oo qoraal ah yaa la diyaarin. markaasaa programkii AI-ga baa loo dhiibi oo laleeyahay waxaan rabnaa codkan qoraalkan iyo shakhsigan hadlahaya inaad iswaafajiso. wuxuu samayn marka wuxuu koobiyeyn ruuxa siduu u hadlayo. sababtoo aad ogaataan ruux kasta sibuu u hadlaa. waa kana inagu garanaynaan leenahay hebel markaad ruuxa taqaano ood maqli jirtay markuu hadlayo ood garanaysaa hebel baa hadlaya. meeshaasi waxbaa jira nooc sibaa jirta dadka hoos uma sii fikirno, laakiin si uu ruuxa u hadlaa jirta ood ogtahay. haddii aadan garanaynin oo si uu u hadlay ay tahay yadan tilmaami karinbe ma dhihi kartid sidan uu dhahayo xarafkaas ku adkeeyayo codkiisu sidan weeyo kan way ma dhihi kartid, mana samayn kartid. way adagta inaad samayso, laakiinse ruux kasta sibuu u hadlaa sida muuqaalka oo kale la mid ah oo aan la garan waayahin. computerku marka wuxuu awoodaa
ruuxa sida uu u hadlayay in uu koobiyeeyo oo markaa deedna qoraal adigu u dhiibtay in uu ka dhigo sidii ruuxa inuu hadlayo kale. halkaa way marka wax meesha la isticmaalayo. marka ruuxii sawirkiisii ee videogiisii oo la haysto, codkiisii oo computerka loo dhiibay oo la yiri waa kan codkan aan rabnaa inaanu koobiyeyno oo ka dhigno qoraal kasta oo hadhow ku sheegno sida codkan uu u hadlayo ruuxan ayaan rabnaa inaan ka dhigto. labadaas la isku daray ama saddexdaaba waxa u dhaho halkaas meesha waxa ka socda. marka isku soo duubo arrintan lagu leeyahay gabadha inay hadlayso oo ireeda ra'iisul wasaaraha Australia wuxuu idin leeyahay milyaneer baan noqonaysaan. ra'iisul wasaarihiina aad moodid inuu hadlayo isleeyahay sidan aad milyaneer u noqonaysaan waa been iyo war weeye. ha isku taabanina, waxba kama jiro, been iyo war weeye. su'aal baa laga yaabaa dadku inay tiri garanayso qalbigooda ku jirto ay dhahdo maxaa loo qaban la'yahay, ma wax laga qabto. waa wax jira weeye. adduunkan dad kala maamusha oo internetka iyo balaayadan ku jirta, balaaya isku rakiban. hadday dawladdu ay toos uga hortagto oo ay ku samayso ayagaas laga yaabaa inay dacaayad iyo siyaarad dadan iyo adugu arrin kale oo markale hadii loo baahdo aan ka hadli, laakiin si hadda waxba waqti ku sii bixin maayo. laakiin waa arrin jirta weeye. hay'ada dad been ah waxba ka jirin oo qaa'inimo iyo xoolahaaga inay dhacaan un raba oo ra'iisul wasaarihii iyo gabadha kaleeta magacoodii khayaamayo oo gabadha hadalkeedii iyo ra'iisul wasaarihii waxaas oo been ka sheegaya yaa intay sameeyaan waana la ogaan karaa hadii la rabo. waa si saalan baa loo ogaan karaa, waxba laga qaban maayo. marka sheeko dheer oo daba socoto arrimo kale lug la weeye. isku duubku waxa weeye ha ku kadsoomina, waxba kama jiro, been iyo war weeye. barigoor waxay bilaabeen inay dad caan ah oo wariyo oo kale iyo dadka aflaanta sameeyay iyo Elon Musk baa kamid ahaa oo ninkan taajirka adduunka ugu taajirsan oo hadlayo dhahayo program baa sameeyay aad ka faa'iideysanaysaan oo aan taajirin ku noqonaysaan. kaga bilaabeen oo ku bilaabeen markii dambe hadda madaxdii bay u gudbeen. marka isku duubo arrintu waa saas weeye, la socda, ka dhageysa, ka yeelina, waa ku kadsoomina, waa been iyo war weeye. It was created exclusively for Australian citizens, but access will only be available for a limited time. This opportunity is for bold and determined people. Unlike scammers, I won't promise that you'll get rich overnight, but I can say with absolute certainty that if you invest just $400, you'll be earning between $30,000 and $50,000 every month. The system works automatically, no skills or prior experience required. Due to technical limitations, we can't accept everyone. That's why registration will close by the end of the week. Those who manage to register are guaranteed a stable income for life. Think about it. $1,000 per day means $7,000 per week and over $30,000 per month. With that kind of income, you'll never have to work yourself to the bone again or worry about your family's future. You'll be waad fahanteen baan malanaya waa been iyo war, waxba kama jiro, been weeye. ra'iisul wasaaraha Australia ma ku dhahayo business baan jira oo intaad investigate been iyo war weeye. maxaa shaqadiisu maba dhici karto, suurtagal ma aho, waa been weeye. walaa gabadhan aan ku jirin markii hore hadlaysay. marka saa wala socda, fadlan la wadaaga dadka kale u gudbiyo. waan ogahay dadka in arrintu ku khaldoomayaan, waan ogahay dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay ku badbaadayaan oo kaliya inay computer shaki ka qabaan oo inay taa ugu dhaqaaqaynay inay u arkaan arrintan arrin dhab ah inay tahay, laakiin se dhab ma oo been weeye, waxba kama jiro. saa wala socda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.